بسم الله الرحمن الرحيم marka hore ilaahay ma iska marka labada xubin maad celinaya TV-ga qaranka iyo wariye sare Cabdirasaaq Kalkaci magacaygu waa Cabdirasaaq Khaliif Aadan waxaan ka mid ahay bahda dhalinyarada magaalada Kalkaci waxaan wasiirka ugu maad celinayaa inuu bulshada siiyay fursad ay su'aalo ku weydiiyaan saacad wasiir waxaan ku weydiinayaa maadaama sanadkii hore 2023 ay dawladda shaqaaleysiisay ama ay mushaar ka bixisay 3,000 oo macallimiin sanadkan la soo xayisiiyay loo madlan yahay in 3 kale lagu daro haddaan nahay shacabka ku dhaqan magaalada Kalkaci iyo dhammaan bulshada waxaan isweydiinaynay in guri walba oo Soomaaliyeed maadaama 3,000 oo macallimiin la shaqaaleysiiyay ama dawladda ay la wareegtay inay payroll-ka ama lacag fee tuition-ka oo waalidiinta iyo ardayda iskuulaadkooda dhigtaan inay lacagahaas wax ka taraan taasna ma aragno haddana sidee wax ku socdaa markaan aragnay iskuulaadka macallimiinta la geeyay ama iskuulaadka dawladda ay maamusho aad ay u yar yihiin marka loo fiiriyo kuwa barayfadka saa daraadeed iskuulaadkaas ama fursadaas ay dawladda ka caawinayso macallimiinta waxay ahayd inay taabato guri walba oo hooyo Soomaaliyeed ama ubad Soomaaliyeed wax ka baranaya inay lacagtaas taabato ama maadaama macallimiinta laga bixiyay in iskuulaadkaas ay helaan waxbarasho ka tayo badan midda barayfadka saa daraadeed wasiir waxaan ku weydiinayaa ayadoo 3,000 oo hore aan lagu sameyn dib u eegis waxa ay ka bedeshay tayada waxbarashada waxa ay ka bedeshay dhaqaalaha guryaha ama waalidiinta ka baxaya waxa ay ka bedeshay lacagtaas horumarinta waxbarashada in haddana 3,000 oo kale la shaqaaleysiiyo waxaan maaragtay aaminsanahay inay arrintaas tahay ama arrin laga habboon yahay waxaana soo jeedin lahaa ama sida igu maqaala macallimiintii wasaaradda qaata qaarkood inay soo shaqo tagin oo lacagaha haafna ay iskuulku qaato haafna ay ayaga qaataan ardayda lacagta sidii looga qaado macallimiintiina kuwii ka tayo hooseeyaan kuwii hore u shaqayn jiray saa daraadeed waxaan codsanaynaa wasiirkaan weydiinaynaa iyadoo aan 3,000 hore kun aan dib u eegis lagu sameyn waxa ay ka bedesho waxbarashada in arrintan dib loo dhigo lana hubiyo بسم الله الرحمن الرحيم اولا الهي سبحانه وتعالى ما اسكله intaas ka gadaal Cabdirasaaq oo ku salaam saaxib aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan martiko inaan su'aashaas kaga jawaabo telefishinka qaranka waxaan weydiin lahaa wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare Ustaad Farax xilliga oo imtixaanaadka ay jiraan dugsiga fasalka 12 dugsiga sare fasalka 12aad iyo dugsiga dhexe fasalka 8aad waxaa caadi noqotay in qashku uu baaho maamulada iskuulada ay ardayda u sameeyaan WhatsApp group ay qashka ku soo arurinayaan arday maanta oo dhan la soo baarayay mid ka mid ah ardaydii ama qolo kale ha facilitate garayso arday telefoon gudaha u galay oo soo sawiro imtixaankii kabacdina groupkii ku soo diro بعد انت laga soo shaqeeyo jawaabihii meeshii lagu soo celiyo arintaas waxay suurad xumeynaysaa waxbarashadii waxay sidoo kale tayadii waxbarashada luminaysaa marka ka wasaarad ahaan waxaan leeyahay Ustaad Farax arintaas hoosh xun leh maxaa idinkaga qorshaysan ka wasaarad ahaan bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Maxamed Faarax Aadan ku nool magaalada Gaalkacyo su'aasha wasiirka weydiinayo waxa tahay marka ugu horeysa tayeynta macallinimada tayeynta barnaamijka waxbarashada iskuulada ka baxaya manhajka baan kala hadlayaa marka ugu horeysa inuu yahay manhajkii midaysanaa oo Soomaaliya la yaqiinay in dawladda federaalka Soomaaliyeed wasiirka caafimaadka wasiirka waxbarashada uu keeno si waxbarashadu ay u noqoto mid manhajkii Soomaaliyeed uu yahay teeda kale waxaan kaloo halkan macnaha ka sheegaynaa haddaan waalidiinta ardayda wax barato aad iyo aad waxaan macnaha uga cabashanahay quality-ga macallimiinta wax barayta ardayda laftigooda inay tayeysan yihiin waxaan kaloo su'aalo weydiinaynaa lacagaha faraha badan oo iskuulaadka laga qaado oo payment-iga ardayda laga qaado oo ah mid markii iskuulku furan yahay la qaato markuu xiran yahay la qaato aadna macnaha dadku ugu badan oo qofku markuu uu ka dhigto 5 ciyaar 6 ciyaar markii iskuulaadka dhigta waxbarashada oo dib ugu tahay oo la leeyahay jumla ahaan u keen hal mar qofku bishii meeshii uu ku bixin jiray markii uu macnaha wax helo ama wax qaato ama mushaar qaato uu ku bixin jiray la leeyahay soo hormari 2 bilood oo fasaxa iskuulka waxbarashada
uu xiran yahay horaa loo qaadanayaa taasna cabashaan ka nahay wasiirku hadduu wax ka qaban karo aad baan u soo dhaweynaynaa intaasaa su-aasheeda ku eg tahay waana mahadsantihin wasiirka waxaan weydiinaynaa wasiir maxaa inkaga qorshaysan ardada wax ku barata ee galmudug maadaama ardada waalidiintood laga qaado canshuuraha iyo taakulada dawladda haddana ayagii laga qaado dhaqaalo meelaha ay wax ku bartaanna ay meelo iska yaryar ay yihiin in laga bedelo meelaha ay wax ku bartaan loo casriyeeyo kuwa kale oo aan waxbarashadooda la kordhiyo wasaaradduna in ay ka saacido taskiilaadka laga qaadayo ardada in ay ku soo noqoto dawladda maadaama waalidiintii wax laga qaado marka warkaygu wuxuu codsigiisu ku salaysan yahay wasiir in wasaaradda waxbarashada la tayeeyo dadka masaakiinta oo canshuurta laga qaado oo dawladda taakuleeyana aan dib loogu celin ardada waxa laga qaadayo loona tayeeyo meelaha ay wax ku baranayaan sida degmooyinka iyo gobollada iyo deegaamada ardayinka ay wax ku bartaan meel kasta in la geeyo macallimiin wasaaraddu ay mushaar siiso ardaydana waxa weeye ay ka saacidaan xataa waxaa xaq u leeyihin arday in laga saacido macabuugta iyo dariiska ay ku soo gelayaan labiska oo ay ku soo gelayaan foomka oo ay ku soo gelayaan waxbarashada ay ku soo gelayaan in laga saacido xataa way xaq bay u leeyihiin maadaama waxa weeye galmudug aysan dekedana lahayn dadkiina dhaqaalaha laga qaado inta dhaqaalaha laga qaado in dib loogu celiyo ee waxbarashada iyo horumarka dib loogu celiyo